سائلك كوباد سؤال سوق رحلة الشيخ قفك إمامك كلا هرم مرة سجودة حكم كيس محن غنيا مثلا هذا حكم كيدو محن غنيا فلا تفضل الشيخ. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد كل wanaagsan ilaahay baan ka baryay carabkeena inuu xaq ku sugo simbirraxada shaydaanka inuu naga duwo wixii uu ina barayna kuwii ku intifaaca la inaga dhigo cudurkan la sheegayana inuu ilaahay naga badbaadiyo inta hayana uu ka caafiyo inta kadib su'aalaha hadii aynu soo noqono su'aasha hore sheegaysa qofku markuu imaamka kala horumaro sujuuda waxa isweydiin la xaq ku socdaa hadii jeer awrka uu hogaaminayo ka dambeeya marka imaamka hogaaminaya imaamkii hadduu ka horeeyo waxay taasi sheegaysaa inuu qofkan iyo qof ma aan isogeyn oo baxsan hadduu daa u bareerana khatarteeda bay leedahay marka arintaasi arin sharci ahaan qalada weeye xaraana ah culimada qaarna waxay qabaan inay salaadu kaga burayso isagoo imaamkii rukuucdii ka soo kaco uu taagan yahay hadduu rukni kala horeeyo sujuudo way kala duwan yihiin qofku haddii uu ogaanu u dhaafay imaamka waa ka buri kartaa inkastoo ay culimadu isku waafaqsanayn haddii uu si kama ah ama ilow ah ay uga dhacdayna salaadiisii waxba noqon mayso nabigu sallallahu alayhi wasallam arintan isagoo ka digaya wuxuu miyaanu ka yaabayn qofka imaamka sujuuda uga horeynaya ama rukuucda uga horeynaya madaxiisa inuu ilaahay u bedelo madax dameer ana dambigu geysanayo weynaanteeda waxa kale uu tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wasallam imaamka in laga dambeeyo inay tahay waxa la isugu xidhan salaada inma ju'ila al-imaamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi xadiidkii saxiixa imaamka waxa loogu talagalay in laga dambeeyo oo lagu daydo khilaafina buu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam marka taa xukunkeedu waa caynka